السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومحسنتين مانت وقميص وأنا شني لباتنك بيش سجالة سبتمبر سنة كلبدا كون إيه شني لباتنك مانت هذا مركز لو حندي وضع مسوماسق عصب إيه الصومالي دي قبل كمينيسوتا وحاجرتي إن هراي فيدنا ورفيوجر يوصل دعدي حدنا تضبط كلا صور في لعكتي ميديكيت كا إن سداد قف تعود لوسو أقول لحكم ذا الصوماليين حدنا قف كي وجه الرئي oo xanuunka autism-ka caruurta qabta goobaha lagu xanaaneeyo lacagihii loogu talagalay la musuqmaasuqay ayaa qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya shalay dacwad lagu soo oogay waa haweeney Soomaaliya magaceeda waxa la yiraahdaa Caasho Farxaan Xasan waxay noqotay qofkii ugu horeeyay oo dacwad la xiriirta kiiskan autism-ka lagu soo oogo sidoo kale waxay ku lug leedahay kiiskii Feeding Our Future oo ay noqotay qofkii 76aad ee dacwad dhinaca kiiskaasi Feeding Our Future lagu soo oogo arrimahaasi ayaan idila socodsiinaya maxaa cadeymaha oo lagu soo bandhigay qareenkeeda Caasho muxuu leeyahay iyo sidoo kalena dawladda oo adkaysay gobolka Minnesota dhamaanba barnaamijyadii federaalka ahaa ee lacagaha lagu bixinayay kadib markii musuqmaasuqa uu aad u farabatay dhinaca Feeding Our Future sidoo kale waxaa jirta in qofkii 56aad oo qof Soomaali ah oo ah nin magaciisa la yiraahdo Abdullahi Nuur Jeesow oo isaguna dambigiisa qirtay oo qofkii 56aad uu noqonayo warbixinadaasi ayaan idila socodsiinaya balse marka hore soo dhawaada umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada labo gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex baridda qaabka loo guto acmaasha umrada afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona faafahintaasi dheer fadlan WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin معك أبي ضلحة حفظين القرآن الكريم كي علوم تشريعه ومع لغة القرآن الكريم تجويدك أغرسك قرسته هي حاجات تفرتها عاد صدق على كبرك عربية اسم المسلم كسيرة النبي سفينة النجاة هي تربية الإسلام وحنو أدينا عروتي يدك واوين وصابير مانتا سيادون قطع حافظ القرآن برشد يفتينه الصيدا وحي فافاين تصدير waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda Soomaalida Minnesota musuqmaasuqu waa iska soo daba dhacaya wareer Minnesota maxaa qaldan sida muuqata horay kiiskii Feeding Our Future waan u ogeyn oo hadda la leeyahay lacagtiisa 300 milyan ay kor u dhaaftay inay 400 milyan ilaa 500 milyan gaartana waa laga yaabaa wali baaritaanka waa uu socda waxaa jirta sidoo kale hadda toddobaadkii la soo dhaafay in Medicaid oo loogu talagalay dadka guryo la'aanta ah amaba ka soo kabanaya drugska iyo qamriga iyo in guryo loo raadiyo inagana la musuqmaasuqo 8 qof oo 6 kamid ay Soomaali yihiin dacwad lagu soo oogay hadda waxaan ogeyn xarumo lagu xanaaneeyo caruurta qabta autism-ka oo la xanuunsan in bishii 12aad ee December ee sanadkii 2024 baaritaan lagu sameeyay xarumo la kala yiraahdo Smart Therapy iyo sidoo kalena xarun kale oo Star Autism la yiraahdo in la baaray bishii December ee 12aad ee sanadkii dhamaaday 2024 haddaba baaritaankaasi waxa socday sidii dacwad dadkii ku lug lahaa loogu soo oogi lahaa haddaba qofkii u horeeyay oo ah qof Soomaali ah ayaa shalay oo lala xiriirinayo musuqmaasuqa kiiskaasi caruurta xanuunsan oo autism-ka qabta meelaha lagu xanaaneynay ama la geynayay in lacagahoodii la musuqmaasuqay qofka ugu horeeyay ee dacwadda lagu soo oogay waxa la yiraahdaa Caasho Farxaan Xasan oo 28 jir ah waxa lagu adeynaya lacagtii canshuur bixiyaasha ee loogu talagalay in wax loogu qabto caruurta la xanuunsan autism-ka in la musuqmaasuqay Caasho waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay oo kiiskan dacwadda lagu soo oogo la xiriira autism-ka 9 bilood ka hor ayaana baaritaan lagu sameeyay xarumahaasi Smart Therapy Center LLC iyo waliba Star Autism waxaana xarunta hadda ay iska lahayd Caasho oo Smart Therapy la yiraahdo lagu eedeynaya
in ay qaadatay lacag dhan ilaa iyo 13.8 milyan oo dollar. marka waxyaabaha lagu eedeynaya waxaa ka mid ah caasho in ay waalidiinta inta loo tagay la dhahaya caruurtiina keena xaruntaasi ama ha qabaan autism amaba iyaysan qabin. sidoo kalena waxaa jirtay in dadka ma iska leh xarumaha autismka Soomaalida in ay lacago siinayeen kickbackisa waalidiinta oo la dhahayay haddii aad caruurtaada halkaasi keento lacagtaasi ayaa lagu siinaya. caruurta qaarkood iyagoo iskuul jooga ama wadanka ka maqan ayaaba la dhahayay goobta ayay joogaan. waxaana sidoo kale jirta in shaqaalaha aysan xirfad lahayn la shaqaalaysiinayo oo dad qaraabo ah oo waxbarashadoodu high schoolka aysan ka sarreynin 18 ilaa 19 la shaqaalaysiinayay. waxaa loogu talagalay dadka caruurtaasi xanaaneynaya xanuunka autismka qabta inay shahaado soo qaataan loogu talagalay in caruurtaasi ay ku hayn karaan wax khibradana ma aysan u lahayn wax shahaadana ma aysan haysan. haddaba barnaamijkan waxaa la yiraahdaa EIDBI ayaa loo soo gaabiyaa Early Intensive Developmental and Behavioral Intervention ayaa la yiraahdaa barnaamijkaasi waxaa loo soo gaabiyaa EIDBI. sidaas darteed waxaa dacwad-oogayaashu ay sheegeen inay hayaan cadeymo muujinaya in shirkadahaasi ay soo dirsadeen lacago ama adeegyo aysan u qaban caruurta la xanuunsan autismka. marka waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in waalidiinta la siinayay lacago 300 ilaa iyo 1500 oo dollar ah si caruurtooda aysan uga wadanin goobahaasi. Soomaalida waa taqaanaa filisaad wax la yiraahdo qof kale oo meel kale la wuxuu leeyahay meeqa loo siiyaa intaas aniga intaas ku siinaya caruurtaada ka soo waday aniga ii keen. arrimahaasi ayaa lagu helay in ay xarumahaasi ay sameynayeen. sidoo kalena waxaa jirta in caruurta in lagu sii hayo goobahaasi oo la diiwaan geliyo lacagahaasi lagu bixinayay iyo sidoo kalena in been laga sheegayay caruurtaasi inay qabaan xitaa caruur aan qabin xanuunka autismka ayaa goobta la keenayay isla markaana la dhahayay daawooyin ayay qaataan. arrintaasina sidoo kalena waxyaabaha lagu soo helay ayay ka mid tahay. shaqaale aan u qalmin inay meesha ka shaqeeyaan oo da'doodu 18 ilaa 19 tahay oo qaraabada dadka iska leh yihiin waxbarashadooduna aysan dugsi sare ka sareynin wax training oo tababara iyo shahaadooyin la xiriira sida loola dhaqmo caruurtan qabta autismkana ma aysan haysin. caruurta la xanuunsan autismka waxa ay kala yihiin verbal iyo non verbal. kuwa iska aamusan yihiin meel iska fadhiyaan kuwana waaba dadka ay dilayaan oo waa ordayaan oo waa qaylinayaan. marka waxaa jirta in dadku shahaadooyin gooni ay u soo qaataan sida caruurtaasi loo xanaaneeyo. marka waalidiinta qaarkood ayaa xitaa waxa ay ku hanjabayeen in ay isaga tagayaan oo caruurtooda ay ka wadanayaan meesha oo meel kale ay geysanayaan haddii aan loo kordhin lacagaha la siinayo ee kickbackiska ah. sidoo kalena qaar ka mid ah qoysaska ayaa waxaa la leeyahay in ayaguna ku hanjabayay in meel caruurta ay goobahaasi ay ka wadan doonaan. caasho waxaa la leeyahay waa ay fahansaneed in inta badan goobaha Soomaalida oo autismka ay leeyihiin in lacagahaasi kickback ay bixiyaan iyaduna lacagta kickback oo ay bixinaysay lacag kaasha ayay ahayd. marka inta badan waalidiinta xitaa waxaa la leeyahay waxa caruurtooda soo qaadaya gaadiid oo ka qaadanaya waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota lacag. sidoo kalena in shirkadahaasi caruurta la xanuunsan autismkana lacaga kale ayay siinayeen. marka xitaa shaqaale iyagoo qalliin ka soo kabanayay oo xanuunsan ayaa lacaga la siinayay ayaa la leeyahay baaritaanka ayay ku jirtaa. marka waxaa jirta in shirkado fara badan baaritaan lagu sameeyay. hadda waxaa la leeyahay 84 kiis oo xarumaha autismka bixin jiray ayaa baaritaan ku socda. 24 ka midana lacagihii la siin jiray sidoo kale waa la joojiyay. caasho marka waxaa la leeyahay lacagaha ay heshay waxay guri uga iibsatay Kenya iyadoo sidoo kalena iyada lacagahaasi si gaar ah u isticmaashay. marka waxaa jirtay in lawyerkeeda oo la yiraahdo Ryan Basiga uu yiri caasho waa ay ogeed in ay dambi leedahay laakiin waxa ay doonaysaa hadda inay dambigeeda qirato. waxay ahayd qof doonaya inay ganacsi si wanaagsan u samayso laakiin waa ay ogeed in musuqmaasuqan uu bilaabmay laakiin waa ay sii waday. waxa sidoo kale la weydiiyay ma laga yaabaa in lacagtaasi 14 milyan ay soo celiso maya ayuu yiri yaa lacag intaasi la eg soo celin kara. haddaba qareenkeeda Ryan Basiga waa caasho qareenkeeda oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri She knows she's guilty. She wants to make it right. Asha Hassan's someone who, in her heart, wanted to start businesses for the right reasons. But nonetheless, Asha knew at some point that the fraud began and she let it continue on for a while. Yes, there were real services provided, but it was at a fraction of what was billed for. No, who could? sidoo kale dawladdu bishii June waxay adkaysay la socodka
lacagahaasi lagu bixiyo HSS-ka oo hadda dadkii 8 qof ee toddobaadkii hore dacwadda lagu soo ogay iyo kuwan autism-ka waxaa jirtay in baaritaanada la adkeeyey oo dadka iskale goobahaasi fara laga qaadayay isla markaana sidoo kalena iyadoo aan loo sheegin xarumahooda lagu booqanayay sidaas darteed ayaa dowladdu hadda ay u adkaysay waxaa jirta sidoo kale in Caasho iyadana ay noqotay qofkii 76aad ee kiiska Feeding Our Future dacwadda lagu soo ogo hal mar ayaa laba dacwadood midkan autism-ka iyo midkan Feeding Our Future ba lagu soo ogay Caasho waxa la leeyahay waxa ay diiwaan gelisay hay'adeeda bishii July ee sanadkii 2020 waxayna sheeganaysaa caruur 300 in ay 7 maalmood toddobaad kasta ay quudinaysay waxayna qaadastay lacag gaaraysa $465,000 half a million lacag ku dhow ayay Feeding Our Future ka qaadatay tan autism-kana lacagta lagu eedeynayo waa $14 milyan marka hadda waxa ay sheegeen sidoo kale waaxda gobolka Minnesota u qaabilsan caafimaadka in hadda ay joojiyeen in xarumo cusub oo autism-ka laysin la siiyo iyadoo hadda kuwa kalena uu baaritaan uu ku socdo dhinaca kale kiiskii Feeding Our Future baaritaankiisa wali waa u socday dad waxa jiray hadda bisha soo socota dacwadooda inay bilaabato ahayd nin magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Nuur Jeso oo 65 jira ayaa waxa uu noqday qofkii 56aad ee dambigiisa qirta kiiskaasi Feeding Our Future waxa uu kamid ahaa 8 qof oo lagu eedeynayo $17.4 milyan inay ka xadeen kiiskaasi Feeding Our Future ee xilliga coronavirus-ka loogu talagalay caruurta in lagu quudiyo Jeso iyo 8 qof ee la eedeysan waxa dacwadooda la filayay bisha October ee soo socota 14keeda inay bilaabato laakiin hadda dambigiisa waa uu qirtay waxa la leeyahay December 2020 ayuu diiwaan geliyay urur oo iska lahaa oo Academy for Youth Excellence la yiraahdo waxana uu sheeganayay in uu quudinayo 2500 oo caruur 7 maalmood toddobaad kasta April 2021 Jeso waxa uu gaarsiiyay caruurta uu quudinayo 5000 in uu quudinayo caruur maalin kasta 7 maalmood sidaas darteed hadda waxa la leeyahay dambigiisa waa uu qirtay inta badanna lacagtii uu qaatay waa uu soo celiyay marka waxa la filayaa isagana in xilli kale la xukumi doono marka waxa uu noqonayaa qofkii 56aad ee dambigiisa qirta ka hor inta aysan dacwad la gaarin oo dacwadiisa aysan bilaaban aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo